sida lagu sheegay bayaan ay daabacday wakaaladda wararka Amber ee dalka Suudaan. ciidamada Suudaan ayaa ballan qaaday inay jawaab ku habboon ka bixin doonaan dilkii ciidamada Itoobiya ay ku fuliyeen 7 askari oo Suudaan ah iyo qof rayid ah. arrintan ayaa soo cusboonaysiisay murankii xuduudda ee u dhaxeeyay labadan dal muddo 10 sano ah. wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan ayaa war qoraal ah ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in Suudaan ay si degdeg ah ugu yeeri doonto safiirkeeda u fadhiya Addis Ababa si ay wadatashi uga yeeshaan dhacdadan. wasaaraddu waxa ay intaasi ku dartay in sidoo kale ay u yeeri doonto safiirka Itoobiya u jooga magaalada Khartoum si ay ugu wargeliso sida ay u cambaaraynayso falkaasi. ilaa hadda ma jirto wax jawaab ah oo ka soo baxay dhinaca dawladda Itoobiya oo ku aadan eedaynta Suudaan. markii ay taariikhdu ahayd 22kii bishan Juun, askari Suudaani ayaa la dhaawacay, 7 kalena waa la laayahay kadib markii uu iska horimaad dhex maray ciidamada Suudaan iyo kuwa Itoobiya. muddo 10 sano ah waxaa labadan dal ka taagnaa muran ku saabsan gobolka barwaaqa sooranka ee ku yaala suudinta labadan dal ay wadaagaan ee lagu magacaabo Al-Fashqa. laakiin xiisadda ayaa sii kordhaysay sanadihii u dambeeyay, taasi oo ay ugu wacan tahay saameynta ka dhalatay colaadda gobolka Tigray ee ku yaala waqooyiga dalkaasi Itoobiya iyo mashruuca biyo-xireenka dawladda Itoobiya ay ka dhalinayso korontada ee ay ka dhisatay webiga Niil, iyadoona dhinaca kale 10 kun oo qaxooti ah oo ka qaxay dalka Itoobiya ay u qaxeen bariga dalka Suudaan. haddaba maxuu salka ku hayaa khilaafkan u dhaxeeya labadan dal ee Itoobiya iyo Suudaan? asalka colaadda xuduudkan labada dal ee ku salaysan deegaanka Al-Fashqa waxay dib ugu laabanaysaa waagii gumaysiga, iyadoo heshiisyadii la saxiixay sanadkii 1902 iyo 1907 ay dhigayeen in xuduudaha caalamiga ah ee Suudaan ay gaarayaan bariga Al-Qafsha. tani ayaa ka dhigan inay dhulkaasi Suudaan leedahay, balse dadka xabashida ah ayaa waxa ay degeen dhulkan. sidoo kale beero ayay ku leeyihiin, iyagoo canshuur ay iska soo ururiyaan ku wareejiya dawladda Itoobiya. wax yar kadib sanadkii 1998 Suudaan iyo Itoobiya waxay dib u soo nooleeyeen wadahadallo muddo dheer socday si ay u calaamadeeyaan xuduudkooda oo dhererkiisu yahay 744 kiiloomitir. laakiin muranka ka dhashay degmada Fashqa ayaa waxa uu ahaa mid aan xal loo helin. sanadkii 2008 wadahadaladii u dhaxeeyay labada dawladood ayaa heshiis laga gaaray markii Itoobiya ay aqoonsatay xuduudda sharciga ah, Suudaanna ay ogolaatay in xabashida ay ku sii noolaan karaan dhulkaasi wax dhibaato ah aan loo geysan doonin. haddaba xiisadan ka dhex alowsan labada dal dagaal ma isku bedeli kartaa? qaar ka mid ah goobjoogayaasha ayaa qaba in xilligan aysan suuragal ahayn in muranka xadka ee gobolka uu isu rogo dagaal u dhaxeeya labada dal, maadaama labada dal ay ku mashquulsan yihiin colaado gudaha ah. bishii Maars, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa meesha ka saaray in dalkiisu uu dagaal dhan walba ah la galo dalka Suudaan. si kastaba ha ahaatee, iyadoo ay jiraan ballanqaadyo hore oo ay labada dhinacba soo saareen, haddana xiisadda cusub ee ka dhex jirta xadka ayaa laga yaabaa in ay xaaladdu faraha ka baxdo oo ay isu beddesho dagaal cawaaqib xumo ku keeni kara labadan waddan iyo gobolkaba.